aan ku ri hay oo aan faraxsanahay oo happy hay aniga haduu yaayo iyo xitaayaasta hadalkiisu mala iyo tamartii dooca ayuu ii deetana waxa dhacday 12 bishii ibalamiyay oo igu fogeyd markaan gurigii joogay maalintaan ka soo noqday aan gurigii joogay 3 casho ayaa maalin taleefankii ii soo dhacay Yaasir waxa weeye cishaay laga soo baxay oo canjeelo garaacayo wuxuu yiri canjeelada garaacaysa ha maanta waan ku arkay markaasaan ku xagaad ugu aragtay waxaad xidhnayd dirac sidaa u eg googaraduna saas u ekeed shalmadaad hagoognayna saas u ekeed alla walaahi waa runta gurigaaban joogay ma soo bixin xagaad ugu aragtay waa maalin jimca ah waan ku arkaa buu yiri maalin kasta anigu waan ku arkaa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم deetana okay alla laakiin aniga maxaa isku kaytusi weyday alla xaasid baa tahay alla Yaasir oo ku jeclaa Yaasir mar hal mar uu iskaytus Yaasir habeenkaas oo dhan waxa igu noqotaa jacayl qof caloosha bilbilaysa qalbigu bilbilayo jacayl la ooyo jacayl la tiicaya baan ahay maalintii ugu dhaw waan ku arkaa Cabdi Qaadir oo maalintii dambe habeenkii dambe goor fiida aan canjeelo garaacaya ayuu Yaasir la soo hadlay wuxuu yiri wadiga canjeelada garaacaya wadiga canjeelada garaacaya markaad qooshka faraha kala baxdo guriga hortiisa aad faraxalato guriga hortiisa daaqada kajada hoosteeda hadiyad baa ku taale ka qaado alla xagaad joogtaa wallahi aniga farxalan baa soo baxaya degdeg baan u orday qooshkii oo dhamayn waan farxashay waan baxay hadiyada meesha igu tilmaamay taan arag waxaan raadinayaa qof meelahan jooga toosh baan sitaa toosh baan sitaa waxaan raadinayaa qofka meelahan jooga cidna maan arag cidi meelahan ma joogto cidi meelahan kama dhawa hadiyadii baan soo qaatay waxa iigu jira sad yar oo dahaba qoor yar oo qoortaas saas oo fiina ah iyo dhigan yar yar iyo fargal yar wax yar oo gabigeedo 12 gram isku ah ayaa iigu jira waan soo qaatay alla waaw midahaba kugu dhaariyay waan ku celiyay laakiin xagaa tagtay maxaad iigu imo weyday maxaad soo kaytusi weyday may 12 bisha iska sug okay Royalow 12 bisha soo dhawaaday sidkeera dahabka xidhay xaafadii waan ka qarinayaa dhano waxaan isleeyahay aan lagu ogaano walaalada iyo islaantan aabaha qabo iyo ku ogaano lagu orana xagaad ka keentay dahabka ilaa inaan yar baa tahay oo dhinac waan ku qarinayaa dhinac waan ku faraxsanahay waxa uu ii keeno Yaasirna adduunkan ugu jeclahay adduunka ayaan ugu jeclaa wax Yaasir ii keeno 12 bisha soo dhawaatay sidii baan isku faacsay sidii baan isku sii taacsan waan sii diyaariyay meel kasta waan sii meeday waan sii balanta ma ka horba sii marmarataan bayduku ha balanta inta soo casho ka horban soo dhaqnaa oo anagu soo baxnaa oo xagaas kaga soo baxay dadka timaha marsanay jilcisada anagu inoo dhiibay ka waran faartaydo aniga waa diyaar wallahi waan soo baxnaa anagu de maanta kuwaad waa isla maanta ma soo labisnaysaa بس سوف أستنبه ها أعوذ بالله هاي واسي فعسنا واسي مرد واسي بهالكياني دركي بانسي حدي waxaan sii xidhay darkii Yaasir ii keenay darkii Yaasir ii keenay waa sii xidhay alaabtii dahabkii wixii Yaasir ii keenay baa sii xidhay 12 baa la gaaray wuxuu igu balamiyay isla gurigii isla waqtigii iyo waxa weeyeen wuxuu igu balamiyay isla meeshii isla sidii ii balamiyay wuxuu igu yiri marka sax looga soo baxo guriga imow albaabka qoraxda ka dhaca ee maalintii hore ka soo gal kursigii aad fadhiisatay fadhiiso ee daaqada u dhawaa anigana waan ka daba imanaya ilaahay waxaan ka rajeynayaa inaana maanta waxba igu dhicin aan ku imaado anoo caafimaad qabo oo soconayo sideedii ah Cabdi Qaadir oo hayban ku yiri galabtii markay ahayd ayaan xaafadda waxaan u sameeyay shaah iyo waxbaan u sameeyay gabadh yar oo jaarkayga baan u tagay xinaan soo marsaday gacmaha saa isugu soo jarjaray xinihii bay soo marsay reerku waxay leeyahay xagaad u socotaa maanta waxay naysatay gabadhan saaxiibna meherkeedii weeyaano meherkaasan tagaya Cabdi Qaadir oo intaana bixin uu ila soo hadlo wuxuu yiri galabta aad baad qurux badnayd xinaa gacmaha ku saarnaa gacanta waxa kugu saarnaa xina noocaasa gacanta kale waxa kugu saarneed xina noocaasa balambaaris baa kugu sawirnayd wuxuu ii sharaxayaa xinaha gacmahayga ku sawiran
inta aanan bixin ka hor buu ila soo hadlay wuxuu yiri galabta aad bad qurux badnayd aad bad u shidnayd xinna gacmaha ku saarnaa waa diyaarsanayd wuxuu ii sharaxayaa waxaan gacmahayga ku marsanaa iyo xaaladda markaan galabta ku jiray maryahan xidhnaa iyo saan u eekaayo inaan gabadh dhalaalisay oo ninkii ay jecleed la kulmayso isku sii dhalaalisay aan ahay ayuu ii sharaxayaa markaas waxaa la xagaad ugu aragtay galabta xaafadaba kama bixine hal mar baan banaanka soo istaagay markaas aad aragtay markaas wuxuu leeyahay markasta anigu waan ku arkaa waana kula joogaa sikin kasta iyo waxaad qabanayso iyo guriga markaad wax ka qabanayso iyo markaad siifto iyo markaad iskuul ku maqan tahay iyo inta aan taleefanka kuugu jira ma inta kale waan ku ogahay waxaasi aniga ima gelin anigu waan ku faraxsanahay inuu markasta ay arkayo marka aan joogo gurigeen labisanayo waxaan u labistaa dirac qurux badan iyo diracyahan aan keedsin jiroona guriga ka shaqayn jirin iyo ayaan xidhaa maadaama Yaasir yiri waan ku arkayo markaad banaanka saa u soo istaagto banaanka maantii 10 jeer 8 jeer baan soo baxaa si Yaasir bal meelaha haduu arko oo caawo ii dhaho ama galabta ii dhaho maanta waan ku arkay waxa la gaaray xilligii balanti gurigii baan aaday gaari baan raacay basaska magaalada ka dhex shaqeeyaan raacay guriga agtiisii baan kaga digay basku meesha uu ku dhamaado ayaan kaga digaya markaasaan xoogaa sii lugeynaya guriga koonaha magaalada ku yaala guriga u dhow xitaa ma jiraan oo magaaladu way socotaa laakiin magaaladu ساسسكو هادي عصب yihiin hadda daanta hadda la dhisayaa waa guriyihii u horeeyay la dhisay waa xabad kala fog gurigii baan gaarigii baan ka dhaadhacay ma idhaahdo guriga yaa ku nool ma idhaahdo guriga yaa kugula nool ma idhaahdo guriga yaa iskale ma idhaahdo guriga waan aqaanaayo de guriga xaafadahaas daanta cidda digtay qasaxa diga waan aqaanaa jaaniga maskaxdeeda waxa ku baran garaasantay inuu ku qansaxaa yahay Yaasir ma idhaahdo guriga ayaa degan Yaasir ma idhaahdo guriga ayaa kugula nool Yaasir ma idhaahdo lacala hadaad ii imo wada imsaan sii joogaa guriga waxaas oo dhan ma weydiyo saajaanis ba iima siiyo suu marna iiga sheekeynaya aniga quruxdayda mar iigu heesayo mar jacayl iiga sheekeynayo marba xaalad ugu jiro jaanis ba ma helo baskii baan ka dhaadhacay waan socday waan dhaqaajiyay socday waxaan tegay gurigii baan galay albaabku sidii buu u furan yahay in yaro cabsiya xitaa ma dareemayo anigu waan faraxsanahay happy baan ahay albaabkii baan ka galay waa taagantii markaa qiyaastaan u soo fahmay kulli ma taagni jacayl baa haya gurigii baan galay gurigii markaan galay kursigii baan fadhiistay waxaan eegayaa miiskii maalintii hadiyadii aan saaray kartoonkii baa saaran laakiin ma ogi kartoonka ma hadiyadii baa ku jirta mise kartoonkiyo maraba ku jira baa saaran miiskii buu saaran yahay xoogaa baan fadhiyay gidaaradan eegayaa Yaasir baan ka fikirayaa alla Yaasir goormu imanayaa darsiga way ku xidhnaan doonaa markuu yimaado kalarkee anuu kaladaan jecelahay in inamadu ay xidhaan oo aan lacala xaajigayga mustaqbalka u xidhi lahaa oo aan Yaasir la jecelahay baa ii sawiran isagoo kalarkaa xidhan ba halkaa kasoo geli doonaa isagoo saa u labisan buu soo geli doonaa ma laga yaabaa inaad isagu marihiisii xidhan tahay isna maryahaagii inuu xidhan yahay maskaxdeedan ka shaqaysiinaya cabdiqaadir oo hadaan meeshii joogo aan sidii maskaxdii uga shaqaysiinayo oo aan kursigii fadhiyo hadday adkaanaysaa beelasha xidho أعوذ بالله كوس عفاضمو hadday adkaanaysaayo meeshii ugu darnayd weeye gurigii markaan saa fadhiyo cabaar fadhiyoon cabaar fikirayo ayaa kadinka waxa ka soo galay yaa ka soo galay youtube-ka iyo isla hadda anaga hadhina aad ogaataan yuu ahaa qofkii 3 sano iyo dheeraadka jacaylkaan la soo jilaynay qofkii naga waalay يا تشاو